مردن aniga go'aankaygu waa cad yahay mar dambana Shariif Xasan waa taageer jiray mana taageerayo Cabdikariim waa taageer jiray ma taageerayo senatarada iyaga meesha la tageeyeen oo sharciga wadanka jabiyeenna kuwaasna ha taageerin qof kale lama taageerayo weligay inta noolahay waan ka soo horjeedsanayaa weligay ku taageeri maayo sababtaan u leeyahay waxay tahay maanta waxaad ku dul istaagteen 14 October dadkii dhintay wadankan u dhintay ku dul istaagteen sababtoo ah dadkaas uma dhiban in vain uma haysan dhiman dadka waa in la xasuusiyo runta loo sheega haddii aan loo sheegin dawladdeena aysan ay qaadin waxay noqonaysaa anaga marka indhaha ka fiirsanayna waxaan leenahay Kenya galgalan sinina Kenya waxa harkan lagu sameeyay Kenya anaga aan ognahay waagi kacaanka aad ogtihiin Ilaahay u naxariisto rabbi daraasada ku jiray markay meesha tagaan Kenya way gariiri jireen wariyada wuxuu yiri we trembled waa gariina gacmahana san u gariireen madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhaqan xumo caruurtii naga baray edeb daro caruurtii naga baraya aad iyo aad baan u cambaareerayaa sheemoyiba kuleeyahay madaxweyne bangiyadii aad dhacday iyo gabdhahanagii aad geysay Sacuudiga u dirtay shaaqidooyinka laga dhigtay ee lagu bahdilay barta iyo dhulkii aad dhacday iyo wixii aad dhacday oo dhan waxa inooga daran right now iyo dawladda aad duminaysid xasan sheekh maxamuud oo hadda waxa inooga daran oo waliba anshax xumo ah oo waliba qolooyinka TV-ga aan la yaabanahay sababta ay meesha u qarin waayeen aan isweydiiyoniri waay qolooyinka TV-ga ee soo gudbiya arrinta noocaas inay caruurtanada yaryarka ilaa guryaha TV-ya yaalo ilma yaryar baa fadhiga joogo hooyadii aabihii la joogo warkii baan daawanaynaa xasan maxamuud baa wuxuu ku leeyahay waxbaan dhaliilaya caruurtii yaryareed ee dhalnay ee aan ababinaynay ee dhaqanka suuban ee islaamka ah ee Soomaalnimada ku jirto aan ku ababinaynay inuu inta idaacad yimaado usaan language dhaqan xumo ee xasan wada waxaan damiir waxaan aqoon lahayn waxaan iskuul soo dhiganin weey waxay qabyaaladu dushay oo damiirkiisu siiyay isagoo madaxweyne soo maray oo dalkan madaxweyne ka soo maray inuu intuu yimaado idaacad maanta yiraahdo dalkii baan dumin lafweyn baan ka dhashay hal la burburiyo dawladdu yiraahdo waxa weeye sameeyo Cabdikariim Sheekh Muuse qalbi dhagax waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo u soo dagaalamay dalka Soomaaliyeed anigoo dagaal ku jira yaan ku qaangaaray waligay ma shaqaysan shaqo guud mooyaane shaqo gaar ma qabsanin waxaan u soo dagaalamay naftaydii iyo dhiigaygiina u horay dadka Soomaaliyeed yaan u soo horay waxaan u shaqaynayo u taagnaa ilaa hadda in aan xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed qof kamid uusan ciil qabin inuu sanin gunnimo iyo inuu daciifnimo uga hoos noolaado dad shisheeya qorshaygu kaas waha mabaadiida caynkaas ah markii aan arkay arigoo dadkaygii ku waayay oo dantaydii oo dhan uga baxay oo dunidan aan ku lahayn hal taako milkiya aniga kuma lihi boos kuma lihi oo guri kuma lihi oo xoolo ma lihi maxaa yeelay intaan ka tegay yaan danta ummadda u baxay anigoo sidaa ugu soo dhintay markii aan arkay dawladda Soomaaliyeed habka ay ila dhaqantay qaabka ay u shaqaysay gaalka ayaa laga qabtay saddex habeen baa lagu hayay si fool xun oo ihaana ah layla dhaqmay waa laga soo qaaday Muqdisho la keenay waxa layla dhaqmay si fool xun oo ihaana ah layla dhaqday markii aan arkay iyadoo intii la garda duubay oo indhaha laga xidhay anoo cagacad oo qaawan lagu wareejiyay ciidanka Itoobiya waxay ahayd arrin aad iyo aad iga cadhaysiisay aadna iga naxisay markii aan arkay in mar kaleeto airport ku yaala magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya inuu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga ma qaan bay dhabaynahay waa suuragal markii aan arkay intii la iga soo dejiyay aan qiyaasay in sawir laga qaadanayo isla markiiba diyaaradii lagu celiyay markii la igeeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumay oo goday joogta
dhaanta markay igu dulqabsadeen aflagaada markay ii miiseen say ii caahayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo katiinadaysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay inaanan dal lahayn waxa iga dhaadhacday oo qalbigaygu isweydiiyey inaanan dad lahayn waxaan arkay oo isiri arxan malihid waxa iga baaday arrintaasi waa murugo aad u xanuun kulul bahayd waxa iga baaday markii aan arkay oon ogaaday inaan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan oo dareenka fooshaxun hal mar wada dhaqaajiyay oo hiil iyo hoob ay la garab taagay arrintaas iga baaday